walba oo bini aadam ah marka uu kordho caqligiisa waxa la kordha hankiisa taasoo u keenaysa inuu yeesho himilo uu hiigsado kadib marka uu yeesho himilo uu hiigsado waxa niyadiisa ku soo noqnoqota sidii uu gaari lahaa himiladiisa ayadoo ay taasi jirto haddana waan guul daraysanaa inta badan balse ma dhacdo marna inaan isweydiino maxaa inaga dhigaya kuwa guul daraysta ayadoo la guulaysan karo middaas ayaa u baahan inaan isweydiino middaas ayaa u baahan inaan u helno jawaab ama aan micnayno maxaa yeelay ayada ayaa ah midana tusi karta meesha uu qaladka ka jiro si aan isaga soo saxno sidaas darteed ayaa waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago muuqaal yar oo kuu sharaxaya 4 tallaabo oo haddaad qaado kuu sahlayaan inaad guulaysato lambar 1 dooro waxaad danayso dunidani aynu joogno marka aad si degan u eegto ma jiro qof aad isku dooq tihiin ma jiro qof aad isku dan tihiin ama aad wadaagtaan wax walba balse waxaa jiri kara qof aad wadaagtaan waxyaabaha qaar halka aad ku kala duwan tihiin kuwa kale sidaas darteed marnaba ha isku dayin inaad doorato wuxuu doortay saaxiibka adiga oo dafiraya waxa aad adiga danayso maxaa yeelay maskaxdaadu uma diyaarsano wuxuu daneeyo saaxiibka ee waxay u diyaarsan tahay waxa aad adiga danayso xitaa hadday dhacdo inaad isku doog noqotaan dad badan oo dunida jooga waxaad isku daydaa inaad ka duwanaato adiga oo samaynaya isla waxay ayagu sameeyaan haddana u sameey si ka duwan siday ayagu u sameeyaan oraah baa waxay leedahay hamarin waddo horay loo falay ee waxaad falataa mid adiga kuu gaar ah waxaadna ku reebtaa raadkaaga si ay u soo raacaan kuwa kaa dambeeya lambar 2 filashadaadu ha fiicnaato guul walba oo la gaaro waxay timaadaa ama ay samaysantaa 2 jeer kadib marka koowaad waxay sawir ahaan ugu samaysantaa maskaxda ayadoo ah filasho marka labaadna waxay timaadaa dibadda ayadoo dhab loo gaarayo wixii la filayay muddo ka hor si taa la mid ah yoolalka aan hiigsanno ka hor inta aysan ka soo muuqanin horteenna waa inay ka soo dhex muuqdaan maskaxdeenna weliba sida aan u rabno oraah baa iyana waxay odhanaysaa haddaysan jirin filasho maba jirto awood aan ficil ku samayno si taa la mid ah oraah kale ayaa iyana waxay odhanaysaa marka aad rabto inaad guulaysato waa inaad filataa guul waqti walba maxaa yeelay filashada kadib ayay guushu timaadaa tusaalena waxa kaaga filan adiga intaadan ku soo biirin dunida oo aad ku jirtay uurka hooyada iyo aabbaha filashadoodu waxay ahayd inay helaan ubad waana marka koowaad oo aad samaysantay kadib marka aad ku soo biirtay dunida waa markii ay rumowday filashada waalidka waana marka labaad oo aad dhab u samaysantay si taa la mid ah guul walba waddadaasoo kale ayay martaa waxaa kaloo xusid mudan inay jiraan tusaalooyin muujinaya filashada oo la wanaajiya ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu xadiisul qudsi ku yidhi aniga waxaan ahay addoonkayga malihiisa ee haddaba maanta aan bilowno inaan wanaajino malaheenna annagoo ku sawirayno maskaxdeenna lambar 3 yeelo qorshe qoran yool walba oo la hiigsado waxaa lagu gaari karaa qorshe qoran oo ku haga kaasoo kuu qeexaya tallaabo walbo aad u qaadi lahayd gaaridda yoolkaasi maxaa yeelay qorshaha waajiheeyaha keliya ee ku tusi kara jidkaad u mari lahayd gaaridda yoolkaaga waxay dhahaan qofna ma qorshaysto inuu guuldarraysto balse qaarkeen ayaa waxay ku guuldarraysanayaan dejinta qorshahay ku guulaysan lahaayeen waxaad ogaataa qof walba wuxuu u qalmaa inuu guulaysto balse si uu guulaysto qof walba wuxuu u baahan yahay qorshe qoran oo haga waxaad ogaataa haddaadan lahayn qorshe waxa keliya kuu qorshaysan ayaa ah guuldarro haddaba maanta aan bilowno inaan qoranno qorshaheenna si aan u guulaysanno lambar 4 fuli qorshahaaga fulinta qorshaha waa waxa ugu fudud haddana aan ku fashilanno inteena badan maxaa yeelay keliya waxa kaa xiga la imaansho ficil waxaad ogaataa filashadu inaysan rumoobi karin hadduusan jirin ficil sidoo kale oraah ayaa iyana waxay odhanaysaa qorshaha micno ma sameeyo haddaan lagu lamaanin ficil
haddaba maanta aan bilowno inaan fulino qorshaheenna si aan u hannano filashadeenna gebagabadii waxaan ku dhihi lahaa ku qoro meel qaas ah 4taas tallaabo kuna qasab nafsadaada inay fuliso kadibna waxaad aragtaa sida ay wax uga beddelaan noloshaada wabillaahi tawfiiq